masaajid jimcihii la buuxo oo aad loo tukanayo ayaa nin qurux badan oo dhar aad u qurux badan sita ayaa safka hore ku tukaday oo ka soo kacay culimadiiba u yimiday waxbuu dhagta ugu sheegay sheekh imaamka mikrofon qaato wuxuu yiri ninkan walaalkeenayna dul taagan waxa uu leeyahay jamaca muslimiintu awlaad ilaahay hay weydiiyaan buu leeyahay u duceeyay buu wallahu duceeyay ma sha Allah hadana jimcihii kanu soo kacay ducadii buu u sheegtay wallahu duceeyay hadana jimcihii saddexaad buu soo kacay ducadii buu sheegtay wallahu duceeyay nin culimadii kamida fikiray oo u yeeray soo fadhiisay buu wuxuu imisa dumar guursatay buu ka yiri markaas ilmo guursanba marka warama ninkaas saxba ducadiisaasi ma soconaysa ducadaasi majmacaadan ee awliyadii culimada u badan u duceeyeen ilma ma ku helaya limaada muxuu weelay balishag khilaaf sunna sunnadii ilaahiyadii buu khilaafsan yahay طريقتي لو مريا سحنا ممرن مركا uu soo kacay hay'adiisa quruxdiisa waxa la moodaya nin afar dumar leh oo wali u badnaan ku tixin laakiin markuu yiri maba guursanba ayaa la yiri war number ba ka qaldane horta soo guurso horta numberkaas ka soo sax numberka ilaahay bari tayib hadana jimcihi kale soo kacay ninkii xaaladiisa ogaay xawaasha ka qaaliba ayaa yiri war naga fariis wariyaa intuu imaam meeshii buu fariisiyay culimadii baa ku tiri war ninkii ducada doonaya khayrka badnaa ee duca doonkii maxaad u fariisisay baa laga yiri markaas uu yiri war number baa ka qaldan buu ninka maskaxdu wax ka yar qaba saad ku garatay oo dama guursan buu yiri eeyaga kulligeen dadka maanta muslimiintu in muslimiintu a'azza an-nas dadka adduunyada ugu sharaf badan ee noqdaan ma jecelahay mise ma jeclin bal ninka jecel oo gacanta taag laakiin dariiqii muslimku aziz ku noqonayay inaan qaadno diyaar ma unahay uma nihin bisada iyo jiirka maxaa ka dhaxeeya isaragu ma ka dhaxeeya soma jiirkii baa isku yimid way tashadeen waxay yiraahdeen habeen walba bisadii 10-20 wala na dhameeyay seen u badbaadnaa ka tala bixiya jiir baa yiri marka raay fiican buu soo jeediyo wuxuu yiri waa midaal yani koortan awrta la suro soo mataqaanaan jaras geela la suro hal qaado oo bisada qoorteeda la soo suro si markay soo socoto shanqada loo maqlo dana looga dhuunto markaas jiirkii oo dhan baa yiri wallahi fikradaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyo waan isku raacnay marka jiirka sheekhoogii ugu weynaa baa yiri waa hagaaga ayaa soo suraya buu soo saamaynta nabiga sallallahu alayhi muslimiin doodan maanta inay diinta dhageystaan inay diintu nolosheena ka muuqato inay muslimiintu a'azza an-nas inay noqdaan inay jecelahay laakiin marka la gaaro diinta dadaalkeegii nin walba gaarka dambu gashanaya markiiba war waxba gaarka dambe ha gashane gaarka hore gasho yaa u diyaar gaarka la inuu galiyo insha Allah dhahada